كبر ابلكيشن وعي قلب لشوان مع سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad ka dhageysanaysaan kana daawanaysaan waa wacyi gelin bulshawan oo idin soo gudbinayo casharo taxane ah oo marba ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaaliya oo jecel waxbarashada yar iyo weyn meelba aad dunida ka joogto haddii aqoon yar ay ka hayso applicationada wacyi gelin bulshawan wuxuu ku hayaa fursado oo qaali ah oo aad wax ku baranayso marba inaad la soo xiriirto waaye waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo power saving ayaan baranayna insha Allah taala calaamadan haddaan saaro waxa waaye power saving lagu sheegay waa kana meel kasta geli power saving kaas ayaa la yiraahdaa saddex shardi ayaanu shardi u ah inka koowaad power saving haddii dabkaaga uu marayo 100% ayaa ka bilaabaysaa in aad iska yareysid calaamada ay yareynaysid waatana calaamada iska yareyn kartid waatana tana waa iska yareynaysaa screenka la yiraahdaa shaashada la yiraahdaa kaasoo iska yareynaysaa waa iftiinkan ayaa yareynaysaa iftiinkan hadda ujeedid calaamada hoose ah oo xariijinta dheer oo dhaxda buluuga qaybka ka ah taas iska gaabinaysaa batteriga markuu marayo intaas waaye maxaa kale lagu gartaa marka haddaan taabto maxaa soo baxay doono waa taabtay maxaa soo baxayo ka cashirkeeni power saving waa taawanayaa maxaa soo baxayo midibas ayuu yahay aniga dhex bartamo u yahay aad u jeedaan aniga wuxuu yahay medium power saving extend breath life and limited some vaccines marka waxaa jirto application la iska seexiyo oo inaad iska seexiso mudan tahay jirto waxaa kaloo jira maximum ma jiro maximum qaybtan shishe oo dabka meesha u badan yahay meeshaan waa iga xiran tahay meeshaan meesha dhaxan dhigta waaye meeshaan meesha oo aan hadda taas idin sheegi doono waaye power saving na magaciisa waa kanaaba mood ayaa la isku yiraahdaa taas waaye marka shay walba wuxuu qabanayaa marka haddaan ku yiraahdo kan wuxuu qabanayaa powerka in adiga aad iftiinka un iska yareysid automatic ahaan in uu dabku isticmaali karo furaha aad ku furaysid ama xidhisid hadduu xiran yahay dabka ma isticmaali karo laakiin furaha hadduu furan yahay oo macnaha shaashadu ifayso dabku wuu cunayaa laakiin shaashada haddii oo aad damiso mugdi ka dhigto wuu dameeyaa waxaa kaloo jira iftiinkan hadda u jeedaan iftiinkan hadda aan dheereynayo aan weyneynayo aan gaabinayo aan weyneynayo dabka asana sabab u yahay inuu cuno dabka inuu cuno asana sabab u yahay way meeshaas guduuda waa dabka meesha dhawaanaya meesha kale wuxuu noo soo saarayaa qoraal ayuu noo soo saarayaa qoraalka maxaa ku qoran warqada noo soo diray ma fahanti marka waa la iska gaabiyaa inta badan waa la iska gaabiyaa maxaa kaloo la isticmaalaa marka damage-ka anaga inaan isticmaal la doonayo waa kaas mugdiga inaan mugdi ka dhigno kaasaa taabanay buluug shaashadana mugdi noqonaysaa shaashada dhan mugdi ayay noqonaysaa madow ayay noqonaysaa maxay isku bedeshay madow mugdi waxaa laga yaabaa marka qaybta caafimaadka marka la fiiriyo haddii indhahaagu garaadaha ay yihiin caafimaad dare ay ku hayso iftiinka badan oo ku dhibaayo nuurkii kale oo kaasii baxayo indhahaagu inaad dhibaataysa lama ogolo adduunka sharci ayaa ka yaalo mobile in uu qof dhibaateeyo xataa xuquuqa lagu yeeshaan si dadkan ay ka fikirayaan waa adduunka waa la fikiraa dadkan dib hore u maray waxay ka fikirayaan xuquuqda insaanka marka haddii
oo aad adii wax akhrinaysid ama aad video fiirsanaysid shaashadaadu waa inaysan caddaanin ay madow noqoto sida ugu wanaagsan waayo indhahana ay ku caafimaad qabayaan waayo shayaashii cadcadaay shayaashii madowaay ayaa lagu caddeeyey si ay indhahaga u badbaadaan xuquuqna adag ku yeelan dadka kale waa mahadsantihiin haddana waa ka qaadayaa waxbaan arki doonaa farihii ayaa madow qoraalka ayaa madow shay walba hadda uu madow waa caddaan doonaa haddana ku celinayaa maxaa loo caddeeyey marka caddaanka badan indhaho waxyeelayaa iftiinka indhaho dilayaa saas la soco waa qaybta caafimaadka inaadan xuquuq ku yeelan oo aad adadhin shirkada telefoon noocaasa xaqaan ku leenahay indhihii naga rideen dhaqaaleyna bixin laakiin madow bay u keeneen thank you halkaasna waa fahna maleyna waa ka baxaya cashirkan waa ka baxaya aniga ta cadaankana aad ku ifin doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo jira saddexdaas qaybood waan idii kala sheegay marka haddaan ka baxo marka aan kusoo celiyo haddii aan taabto wuu ka baxayaa mugta iftiinka wuu baxayaa muxuu soo qorayaa haddii screenshot aan ka qaaday ila ma fiiri karno screenshot aan ka qaadnay ma fiiri karno cashirka haddaata u dambeeyo waxaan ka qaadanay screenshot ayaan ka qaadanay meeshan waxaa ku arkaysaa dabka in uu furan yahay 100%. brightka shaashadana in ay tahay no disactive maba shidnaba anaa ka dhigay 70% waxaa shaqeynaya cpu waxaa lahaa waa meeshaas oo maskaxda oo mobilka leeyahay dhaqdhaqaaqa oo fudfudadka keenayo iyo daatada oo backgroundka daatadeedana ayadana waa afgaraysan tahay iyo backgroundka locationka jekis iyo meelaha adii aad banisid oo dhan oo aad isticmaalaysid intaa way xiran tahay maxaa faa'iidaa maxaa khasaaraha muhiimadda oo dhan waxaa ugu muhiimsan oo aan cashirkeena aan ku qaadayno waxaa waaye cpu haddii mobilka maskaxdiisu ay culays ay kaa noqoto badanaa ay culays kaa noqoto waxaa shardiga applicationada kuu shidan inaad seexisid sleeping ayaan u diri doonaa waa ku tusaya haddaan tegaynaa shaashada haddii iftiinkeedu uu badan yahay sidaasoo kale bateriga u dhacayaa haddii ay cpu-ga 70% xawaarihiisa oo la ofgareeyo oo lagu ofgareeyo iyaduna way ficnaanaysaa wixii qalada waa liisoo sheegi karaa oo bini aadan ah waa qaldami karaa waxaan sharaxayo waayo qalad ayaan geli karaa anoo wixii ujeed inaan wax kale iska sheega laga yaaba barnaamijka kale off waaye barnaamijka kalena on waaye sababta marka u dhahayna waxaa waaye bateriga inuu mar walba 100% uu yahay la rabaa 100% saasoo sax ku yahay waa inta aqoontayda marka waa kusoo celinayna waxaan usoo laaban doonaa waxaan u laabanaynaa applicationada ayaan u laabanaynaa waxaan tegaynaa setting ayaan tegaynaa marka hore waxaan ku hormaraynaa setting ayaan tegaynaa meesha aan tegayo waa inaan calaameeyaa meesha aan tegayo setting waayo meeshaasaan tegaynaa meeshaas markaa tagno waxaan rabnaa applicationada noo shidan oo dabka naga cunaan inaan kala ogaano si aa u fahanto ila power saving maanta maraynaa soo maha ileen dabka inta application cunta wayna ogaataa waa ka baxaysaa settingka ayaa taabanaysaa waxaan tegaynaa meesha la yihahdo applications ayaan tegaynaa application may ku qoran tahay oo abka ayaan tegaynaa waa meeshaan applications ayaan tagnay waa furaynaa maxaa noo muuqda maxaase noo muuqan saddexdaas dhibcood ayaa taabanaysaa markaad aad taabato show system application inaan fidis waaye iyo permission manager iyo special access waxaan ka hormaraynaa
defaulter application ku boromanayna muxuu noo sheegayaa marka waxa waa assistant-ka iyo browser-yada application-ka iyo home application-nada iyo phone application-nada iyo SMS-ka message-da open links iyo open-yada u furan yahay kaas ayaa waaye saddexdaas waaye waa ka baxaynaa waan ka laabanay saddexda dhibcood u laabanay waxaan tegaynaa permission manager ayaan taabanaynaa maxaa noo soo baxaya waxaa noo soo baxayo hab anagoo aan aqoonin soomaalina isku xisaabtamin dadku badanaan aysan ku fikiraynin waxyaabahaas oo la isticmaalayo dadkanu ma yaqaanaan waxaana loogu talagalay marka in shayaashaas aad isticmaalaysid inaad marba kala ogaato marka koowaad waxaan qoraynaa body sensories wax application oo aqbalay ma jira kalandarada 3 of 8 application allowed 3 ilaa 8 application u shadan call logana waxaa u shidan 5 ilaa 7 kaamiradan waxaa shidan 21 ilaa 33 contactiga waxaa shidan 16 ilaa 33 application locationka waxaa shidan 6 ilaa 23 microphone-kana waxaa shidan 19 ilaa 26 telefoonkan waxaa shidan 10 ilaa 20 physical activity-na 2 ilaa 2 ayaa marka heerkaas ayaa kala ogaanaysa aqoonaya dadka kale oo sii weydiin kartaa mar labaad ayaan taabanay ka saddexaad ayaan hadda gaaraynaa applicationada furan oo show barnaamijka ah noo kala sheegay intaas application waa anaga aqoonna uma liid Soomaaliya nahay laakiin telefoonka waxyaabahaas oo ku shaqeynaya waaye applicationadaas okay hadda show waa marka qaara maqan qaara marka ku tusaa waa show itus iyo hide iyo qari waa hadda waa show uu yahay special access marka special access waxa waaye appearance iyo waxyaabaha kale oo cashir kale oo labaad ayaa ku qaadan doonaa kan saddexaad oo kan afraad oo noogu dambeeyo restiga waa tirtir waa application oo privacy ah marka anagoo cashirkan oo halkan aan kusoo gabagabeyn doono insha Allah taala waan soo baranay dabka iyo sidoo yahay iyo sidoo loo isticmaalo iyo power saving wuxuu yahay iyo calaamada power saving waxa lagu garanayo iyo qaabka uu yahay power saving maxaa lahaa ayaa waxa soo saaraynay power saving waxa uu yahay power saving calaamadaas uu leeyahay power saving waxa waa mobilkaaga baterigiisa waa nooc kasto ahaado waa in uu calaamadaas leeyahay baterigaaga waa inaad ilaasataa waa inaad kooka ilaalisaa iftiinka badan waa inaad screen ku xirtaa haddii aad isticmaalaysa iftiinkana waa in aad mugdi ka dhigataa mobilka applicationada shashadana waa inaad wada suuxisaa si dabkaaga oo u noolaado waa maasantii soo dhawaada balba adduunyada ku jigtaan thank you waa kulan dambe oo xiiso leh mahadsanediin shukran jazakallahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka aad ka dhageysanaysaan kana daawanaysaan casharada applicationada waa YouTube-ka wacyigelin bulshawan oo idin hayo fursado qaaliya oo wax aad ku maran kartaan qof kasta oo waxbarasho jecel waa ardaygana wuxuu jecel yahay macalinkiisa inuu wax weydiiyo fadlan haddii aad doonto inaad casharada applicationada si joogto u qaadato iska diiwaan geli YouTube-ka wacyigelin bulshawan macnaha waa subscribe saar gambalaalkana furo like saar oo lacag lagagama rabo commentina ka dhiibo macnaha ra'yigaaga taladaada casharada haddaad fahantay iyo haddaadan fahmin si aan u kala ogaano ardaygaas mahadsanediin thank you